السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي هندلن يارو مقعيقا با فهيمة عادل فضلان دانوغو عسبتان ليك نو سار سبسكرايب نو تاو قنبلالك نفورو aadi aad u maasan tahay ayaantan tacsiya ku maqnaay sidaas darteed waxa waa soo dhig waay walaashay aabeeda dhintay marka sidaas darteed mashquul ay ugu furnaay fadlan u soo dacay walaashay aabeeda Ilaahay ha u naxariisto waa walaashay hawartay dhashay qaftan waa sanaa waxay jeceshahay inay daawato Telegramka wiilashana sawiradooda inay fiirsato maalmaha kamid ah waxay arkaysaa page-kaas waxay ku arkaysaa sawiradaasna waxay ahaayeen group school isla dhigta wuxuuna ahaa dugsiga iyada dhigato kadib wiil gadaashooda jooga ayaa arkaysa habeenkayna la xiriiraysa waxaan ku dhahaysaa wiilkan uu qurxoon yahay sawiradiisa waxa fiicnaan leh Telegramka lagu soo badiyay sawiradiisa asagana wuxuu ku dhahayaa sideed ii caawin kartaa adan waxay ku dhahaysaa wax walba ayaan kuugu caawin karaa waxaan rabaa inaan adiga ku caawiyo sida Telegramka uu kaco subaxii markay iskuulka imaado saaxiibadeeda ayaa la sheekaysanayso kadib waxaan arkaynaa wiil riil la dhaho kadib waxaan baaragnaa Tanaka inuu soo hor istaagay adan runaantii way isku naxaysaa marka hore waxay u maleynaysaa qof kale inuu maamulayo page-ka laakiin markan waxay ogaanaysaa Tanaka inuu maamulayo kadib meesha gabdhaha ayaa imaanayo asigana iyadoo gacanta ka qabanaya waxayna isla korayaan saqafka kore wuxuu ku dhahayaa sawiriga qaad sawirkiyoona fiirinaya wuxuu ku dhahayaa maamulaha wuxuu igu dhahay quruxdaada ayaan wax walba ku hagaajin karnaa ayadan waxay ku dhahaysaa waa sax kadib wuxuu ku dhahayaa maamulaha wuxuu igu dhahay adig waad qurux badan tahay hadaa Telegram page aad samaystid oo gaartid 100,000 oo followers waxa noqonaynaa iskuulka ugu caansan arday badan ayaa nagu soo xirmayso ayadan waxay ku dhahaysaa sidee midaas ku sameeynaane adiga ayaa iga caawin karayo ku dhahayaa sababtoo xal markaa fariintiisa qortay niyadeeda way hagaagtay su'aalan ku weydiiyay fariintiisa qortay dadkoo dhan miyaa wada arkayaan ayadan waxay ku dhahaysaa maya waa bare foto kaliya aniga adigoo kaliya ayaa arkeeno wuxuu ku dhahayaa hadda kadib waa inaad shaqadaada qabsataa aadna igu caawisaa aniga sidaan caan ku naqan lahay ayadan waxay ku dhahaysaa markaaga ayaa jiro wax walba adiga jeceshaan waan kuu sameynayaa waxaan rabaa sidaad iskuulka lagaay burinin inaa wax walba jeceshaa kuu sameeyo intaan garab ku siin karan waan ku siinayaa asiga run ahaantii intaas wuu ku farxayaa wuxuu ku dhahayaa wax walba oo ku maasan tahay waxaana tahay gabar qalbi wanaagsan isla waqtigaas sawirka Telegramka dhigtana korayo uu kacayaa followers badan ayuu helayaa sidaas darteed mar walba sawir ay ka qaadaysaa sidoo followerskiisa u bato ayadan way ku farxaysaa maadaama ay caawinayso inkastoo marmarka qaar ay caajis dareento laakiin asiga wuxuu isku dayayaa inuu waaniyo mar walba ayadan waxay ku dhahaysaa run ahaantii followers badan in la gaaro aad iyo aad ay u adag tahay laakiin hamigaaga ayaa wax walba ka badan asigan wuxuu ku dhahayaa waa run laakiin marba mar kasii dambeyso labadooda way sii jeclaanayaan ayadan waxay bilaabaysaa inay ka xishooto mar walba ay aragto ayadoo asiga ka dhuumanaysan derbiga iyo madax gashanaysa ugu dambeyn Riya ayaa u imaanaya wuxuuna geenayaa sariirta kalkaalisada kadib gudaha waxaa soo galaya Kanata wuxuuna ku dhahayaa sidee tahay ayadan waxay ku dhahaysaa waan fiicanahay kadib wuu sariirteeba u koraa wuxuuna ku dhahayaa adiga hadda ma fiican tahay ayadan run ahaantii way yaabaysaa si xun ayayna u fiirinaysaa ugu dambeyn sawiradii fiidiyoyaasha ka duubtay waxay ku fiirsanayaan qaybta kore laakiin gabdhaha asiga taageero ayaa meesha soo korayaan labadoodna meel gees ay ku dhuumanayaan asigan xoog ayuu u qabanayaa gabdhahan waxay ku sheekaysanayaan sidoo caan ku noqday iyo sida kale ayagan waxay dhageysanayaan warkooda ugu dambeyn meesha ay ka soo deganayaan ayadan markay aragtay inay gabdhaha degteen asiga ayaa ka soo cararaysaaba qawaaf ayaan ka qaadaysaa waxaan ku dhahaysaa iga fogow kadibna waxay bilaabaysaa inay isla hadasho asigan waxa aragnaa meeshan oo ka soo kacay ugu dambeyn subaxii marka waa bari waxay arkaysaa fariintiisa way soo xararaysaa waxay imaanaysaa meesha ku balmiyay kadib wuxuu ka qabanayaa qoortaydan way isku naxaysaa laakiin quruxdiisa ayay la yaabaysaa waxayna ka qaadaysaa sawiro dhowr ah oo aad iyo aad u qurux badan kadib wuxuu keenayaa meel filin lagu daawado ayadan way ka helaysaa waxay ku dhahaysaa wad maasan tahay filinka intay daawanaysan waxay arkaysaa laba qofood oo isdhunkanayso run ahaantii aad iyo aad ay u naxaysaa waxayna isdhahaysaa adigan sidaa miyoo kaa rawaane kadib meesha dhan ayay ka soo cararaysaa musqusha ayayna soo gelaysaa ugu dambeyn markay musqusha ka soo baxda waxay arkaysaa asigoo gabdho meesha u taagan oo la sheekaysanayaan laakiin asiga ma danaynayo markuu ayada arkana wuxuu ku dhahayaa timaha ayaan kuu xiraya sidoo gabdhaha iskaaga buuso kadib waxay la yaabaysaa sidoo farxad oo la qaadanayo markay banaanka soo baxaan sawirada ayay tusinaysaa waxay ku dhahaysaa run ahaantii hadeertaan ayuu kacayaa fiidiyogaaga wax walban si caadi ay ugu dhamaanayaan kadib wuxuu isku dayayaa inuu shumiyo laakiin wuu iska deenayaa ayadan midaas ayay la yaabaysaa markay guriga imaadana way farxaysaa kadib waxay soo xasuusanaysaa sida uu qabtay waxay dhahaysaa sida filinka
adigoo kale ayaan dareemay. Kadibna hab ayay siinaysaa boonbalaheeda. Subaxiina iyadoo xishoonaysa ayay u imaanaysaa, laakiin wuxuu ku dhahay maxay tahay xishoodka kaa muuqda maanta. Gabdha ayaa meesha imaanaya, ayadan waxay ku dhahaysaa carar. Gabdhahan waxay ku dhahay maxay ahayd qofkaada kula taagnaa. Ayadan waxay ku dhahaysaa caadi leh, waxba ma jiraan. Kadib meesha waxaa imaanaya Rii, wuxuuna ka qabanaya gacanta wayna isla cararayaan. Wuxuuna ku dhahayaa wax walba aniga waan ogahay, adiga waxaa qarinaysaan run ahaantii banaanka ayay imaadeen. Kadib afkay ka qabanaysaa qol eber ayayna soo gelinaysaa. Waxayna ku dhahaysaa waxaad ogaatay maxay yihiin oo aad rabtid inaad sheegtid. Asigana wuxuu ku dhahayaa waxaan ogahay kanitaha koonkiisa inaad adiga haysid, qofka maamulana aad adiga tahay. Run ahaantii sirtaasoo dhan ayaan ogaaday. Ayadan way qoslaysaa, waxay ku dhahaysaa dirtaan waxaan u maleynaya asigoo kaliya inuu caan noqday, laakiin had dirtaan macalaniga caan noqday. Alaa kula xalaa dirtaan waxba ha sheegin ayay ku dhahaysaa, sababtoo aniga waan xaabinaya oo kaliya. Asigana wuxuu ku dhahayaa waayahay. Ugu dambeyn maalinta xigta way soo baxaysaa, saaxiibadeeda ay u imaanaysaa wayna la sheekaysanaysaa, laakiin saaxiibadeeda waxay u maleynaysaa inay wax walba og tahay. Mar walba qoslaysana way ka shakinaysaa. Macalinka ayaa soo galay, wuxuuna ku dhahay waa garuub u baxdeen. Garuubkiiba 4 ayaa laga rabaa. Sanaa iyo saaxiibadeeda UV iyo Rii waxay noqonayaan hal garuub, laakiin Sanaa waxay ka fikiraysaa qofka afraad oo garuubkooda ka dhiman qofka noqon doono. Albaabka waxaa ka soo galay aktarkeena caanka ee Kanata, wuxuuna ku dhahayaa garuubka Sanaa ayaan raacsanahay, ayaga ayaana ku biiraya. Laakiin ardayda meesha joogta dhan way wada yaabayaan, shak ayaana galaya ayagoo dhan. Laakiin Rii inuu soo istaagay oo u mahad celinaya, wuxuuna ku dhahayaa maadaama garuubkii ay ku soo biirtay waan ku faraxsanahay. Run ahaantii UV-na aad iyo aad ayay midaas ugu farxaysaa. Safar qurux badan ayaan lisla gelayaa, sawiro qurux badan ayaan laga qaadayaa. Waxayna sameysanayaan barnaamijyo badan oo iskuulkooda uga caanbaxo oo arday badan ay ugu soo biiraan. Laakiin asiga mar walba wuxuu isku dayayaa inuu u dhawaado. Dadkoo dhan run ahaantii midaas way la yaabayaan. Maalmaha ka mid ah wuxuu arkayaa Rii iyo Sanaa isla hadlayaan, laakiin Kanata aad iyo aad ayuu u masiirayaa. Safar yar oo sawiro in lagu soo qaado laba talgalay ay soo wada galayaan 4 garuub. Ugu dambeyn sawiro qurux badan ayaa waxaa lagu soo qaadayaa xeebaha iyo meelaha kala duwan. Kadib wuxuu isku dayayaa asiga inuu la sheekaysto, laakiin ayada waxay kala hadlaysaa Telegramka meesha uu marayo iyo halka uu socdo. Asigan midaas wuu ka xanaaqayaa. Kadib inuu keenayo hab siinaya. Ayadan waxay ku dhahaysaa iga foq. Meesha waxaa imaanaya Rii. Ayadan waxay ku dhahaysaa labadan oo isla ciyaarayna oo kaliya. Riina wuxuu ku dhahayaa maxaa sameynaysiin? Ayadan waxay ku dhahaysaa waxba ma sameynaynin. Rii maxaa ku fikiraysaa adiga? Kadib gadaal ayay u soconaysaa, laakiin si lama filaan ayay ku dhacaysaa. Kadibna Rii ayay wejigiisa arkaysaa, waxayna ogaanaysaa inuu aad iyo aad u qurux badan yahay. Ana midaas ayuu ka xanaaqayaa maadaama labadooda si xun ay isku fiirinayaan. Kadib meeshii ayaa imaanaysa, waxayna ku dhahaysaa soo baxayo, laakiin Kanata inuu u qoslayo wuxuu ku dhahayaa aniga meel kale ayaan u socdaa, idinka hadaa rabtiin iska baxa. Kadib waxay fahmaysaa Sanaa asiga inuu masiiray. Run ahaantii xaaladoo dhanna way ku xumaanaysaa, habeenkii oo dhanna way fikiraysaa, laakiin iyuu ayaa u imaanayso. Waxayna ku dhahaysaa sawirada moobeelkaaga maxaa geliyay? Sawir walba oo asiga Telegramka oo soo dhigo adiga moobeelkaaga ayay ku jiraan, yacni waxay ka wadaa Kanata. Ayadan waxay ku dhahaysaa aniga sawiradaas dhan ka qaaday. Ayadan ma aaminayso, way qoslaysaa. Ma waxaad iga dhaadhicinaysaa akoonka dirtaa inaad gacantaada ku haysid? Ayadan midaas ayay ka dhaadhicinaysaa. Waxayna ku dhahaysaa warkanna dhowgaanin ka soo qaad. Ayadan waayahay ayay ku dhahaysaa. Subaxdii xigta Kanata iyo Sanaa ayaa soo raacayaan. Maasiyadayaan waxaa loo qorayaa Rii sida ay kula kulanto. Kadibna saddexdooda ayaa isla kulmayaan. Kadib Sanaa Rii waxay ku dhahaysaa sidee akoonka loo sii ballaarin karaa maadaama hadeertaan 100,000 wax yar ay ka dhiman tahay, sababtoo waxaan rabaa wax walba si inay u hagaagaan. Waxaan rabaane inaan ku xirir lacagta iyo horumarintii waxyaabo la mid ah, laakiin qof Kanata war ku darsan oo samalahan. Labadooda oo kaliya ayaan wada sheekaysanayaan. Asigana midaas wuu ka xumaanayaa. Markii banaanka ay u soo baxaan waxay u sheegaysaa inay wax yar oo kaliya u dhiman yihiin inuu asiga guuleysto. Asigana inuu soo jeesto ayaa wuxuu ku dhahayaa waad ku faraxsantahay soo maahan inaan ciyo guuleysto? Haa ayay ku dhahaysaa, sababtoo waan ku jeclahay. Laakiin asiga uma jawaabayo. Subaxii dambe ayada aad iyo aad ayay u fikiraysaa. Waxaan arkaya Rii, wuxuuna ku dhahayaa maxaad ka fikiraysaa? Ayadan waxay ku dhahaysaa Kanata ayaan jecel u sheegtay, laakiin muusan ii jawaabin. Asigana wuxuu ku dhahayaa maxaad dareentay marka? Waxaan dareemay ayay ku dhahaysaa qalbi jab, wayna oonaysaa. Asigana wuxuu ku dhahayaa aniga xitaa waan ku jeclahay, mar walbaan kugu arka qof kalena waxaan dareemaa qalbi jab. Laakiin ugu dambeyn waxay labadooda ku heshiinayaan inay saaxiibo wada noqdaan. Ugu dambeyn Rii asigoo xanaaqsanaya oo Kanata u imaanaya, wuxuu ku dhahayaa gabadha way ku jeclaatay, maadaama lagu jeclaadan jawaab la'aan aad kasoo tagtid waa qalad.
asigan wuxuu ku dhahay aniga xaggeyga iyo xaggeeda waxba nooma yaalo sababtoo mar walba adigayay kuu dhowdahay adigayay kula tashataa waxaana la wanaagsan adiga inay ku doorato asigan wuxuu ku dhahayaa go'aanka iyada u daa adiga ma inaa go'aan ka qaadato asigan wuxuu ku dhahayaa dhibaatada kaliya inay haysato waa social mediaha kadib wuxuu galayaa live aadan waxay arkaysa dad badan inuu ku darsamayo oo 100,000 uu xiray intaas wixii ka dambeeyay akoonkoo dhan ayuu iska xirayaa dadkoo dhanna wixii way la yaabayaan arintaas ayadan aad iyo aad ay u walwalaysaa waxaan u maleynaysaa inuu meeshan u dhan ka tagayo aad ayaan u oonaysaa saaxiibadeedna waxay isku dayaysaa inay dejiso meesada badan ayay u qoraysaa ugu dambeyn ayadoo cararaysa waxay ugu tagaysaa beerta waxaan ku raaysaa sababta iga tagaysid maxay tahay haddaadan hadda i jeclaan xitaa waxaan diyaar u ah mar kale inaad i jeclaatid aan mar kale isla sheekaysano asigan wuxuu ku dhahayaa waan ku jeclahay mana ka ahaan karo waxaan jeclaan jiray mar walba inaad garabkayga ahaato laakiin danta ayaa igu kalifi jirtay adiga inaan kaa fogaado inuu fariistayo wuxuu ku dhahayaa diyaar muta inaad girlfriendteedaad noqoto idan midaas ayaa ku farxaysaa run ahaantii iskuulka wuxuu helayaa siduu rabay maadaama nin xaana iskuulka u dhex joogo run ahaantii markii la ogaado dariishadeeda sanaa inay tahay qofka akoonka haya oo wax walba ka dambeeyana waxay noqonaysaa qof caana filimkeena quruxda badnaana halkaas ayuu ku dhamaanayaa muuqaalkan ka hesheen like noo saara subscribe noo saara oo gambalaalkana furto aad iyo aad u mahadsantihiin mac salaama.